بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى ديكوان ما يلو عدي دي بندبك الله كقادو عدي دن لله وفي انت بان الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انتي دي متى الله نحرستو والدينتين الله نحرستان نغر الله نوغدب نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob: damaca Ethiopia ee gudaha Soomaaliya iyo xogihii ugu dambeeyay kelmadan ka oranaya. Maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud iyo jahawareerka siyaasadeed oo wajahayo na kelmad baan ka oranaya. Ethiopia waxaa laga nastay dhowr sanadood. Heshiis baa waxaa lagula galay inaan la isfaragelin, inaan maan la isa siiyo. waxaa kalifay maanta Ethiopia waxa ay damacsan tahay. Horta waxa ay damacsan tahay aan ku hormaro. Waxay rabtaa Jubbaland inay kala goyso, Gado maamul ay ka samayso. Waxay rabtaa Hirshabelle inay maamul ka samayso. Waxay rabtaa Somaliland inay isku badarsadaan sida uu sheegay nin aqoonyahan isku sheegay la taliyana waa Abiy Ahmed. nin buufis qabanay ilaa ka sababtoo ah Ethiopia ka horeysa Soomaaliya way kala dhaqaaqaysaa buu yiri, 5 gobol bay u kala go'aysaa. Ethiopia naga horeysa oo ogyahay. waxa kamid ah waxa ay rabto inay Hirshabelle gobol gaar ka dhigto, maamul goboleed madax banaan ay ku taakulayso, ay kala hadashay. waxay hubgelisay aad u tiro badan Somaliland, mid kale oo tiro badan hadda waxay gelisay Puntland. mid hore waa tii uu Xasan Sheekh ka soo gatay oo Cabdiwaaq lagu qaatay. Jubbaland inta kale oo ka hartayna qayb bay ka joogtaa. Koonfur Galbeed hub iyo ciidan ba waa ula diyaar, waana dhex joogtaa. waxay bilowday maamul goboleedyadu inay toos iyada ugu xirmaan oo si toos uga amar qaataan. horey uma jirin, rajaa laga qabay in la kala ammaan helo. maxaa sababay baa la oran karaa. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku kaambeyn gareeyay, anuu garta waa bixiyaa markay qofku uu ka garleeyo ana gartiisa siisa. wuxuu ku kaambeyn gareeyay Soomaaliya heshiisa caalamkan heshiis la. markii ugu horeysay oo caleema saar qabsaday, madaxdii ka soo qayb gashay u hanweynayd Soomaaliya inay wax la qabsato rabtay buu ka mid ahaa Abiy Ahmed. maxaa ku xigay? dhinac buu ka maray oo dhinac buu ka maray oo dhinac buu ka maray, si uu socday buu Masar isu tuuray. markaas wuxuu ka hadlay qadiyad 100 sano jirtay. biyaha ka baxa Nile-ka, webiga Nile, waxay ka bilowdaan ka farcamaan buuraha Ethiopia. biyaha waxaa ku nool Suudaan iyo Masar, ma noolaan karaan biyaha la'aantood. biyaha 10 jeer ay isku dirireen oo hore, oo ciidan ahaan iyo dagaal wada galeen oo si toos ah u dagaalameen. waligooday ku dirireen. maxaa faraha u geliyay? siyaasad xumo, aqoon la'aan, faham yari. hadalkan iyaantii iri dib u xasuusta, waxay keenaysaa Ethiopia inay nala dirirto. Ethiopia waxaa ku furan dagaalo gudaheeda. inay nafis siyaasadeed raadiso way ku khasban tahay. Tigray dhexdoodii baa diriraya. shalay magaalada laga qabsaday iyo dhul dhan baa waxaa qabsaday Eritrea, ayaa waxay ka qabsaday gobolka Tigray. Faano dhulkeedii almost kulligiis waa qaadatay. Oromo sidoo kale. 4 wada soo gala Addis Ababa, 4 waa go'an yihiin. waa shibhul maxsuur wey. yani meel xisaar ku jirta oo hareeraysan bay Addis Ababa u egta. dhankan kaliya ayay u furan tahay, dhanka Soomaalida oo kaliya u furan tahay, iyo meelo yar yar oo kale. laakiin 3 wado oo muhiim ah xiran ma ujeeda. goboladaasi marka waa go'an yihiin. nafis siyaasadeed buu raadinaya, meel uu ku neefsado raadinaya. marka inuu Soomaaliya hub ku daldalo ayuu bilaabay. waxaan rabaa inaan u sheego Abiy Ahmed, adeer aad baa u mahadsan tahay. annagoo faramaran baan kula diriri jirnay, kaana adkaan jirnay. hubkaana soo gelinaysidna aakhirka adaan kugula dirirayna. soo wad more and more. annaguna anfacaya hubkaasi, barina dadka wadaniyiinta gacantoodu gelaya. inta hadda gacanta ku haysana caqliga iyo maskaxda iyo garashada
بالوسو إلينيا سهلا بالو فهمسينيا عدو كليه إليه يا إثيوبيا إيه أسكت يعني كو حتى مظاهرات إيه تاجيرية سياسة بيكو تاجيرية جعيل إثيوبيا أيو قبان كو تاجيرية مصبحين في السياسات بكده سياسة دي باكو عيرتي قبل لدن باق عنت لقا ديغي عيدان كيسي ugu badnaaba la kala diray oo awoodda sheegan jiray oo nala kuma dhaco waligeeyana la kama adkaan waxaas oo dhan bix saraakiishiisi ugu sareysay generaaladii baa ku xiran lascaanood meel uu dhaqaaqo garan lahayd ma rabana inuu xilka ka tago hadduu ka tagana waxa aaminsan inuu dhimanayo ama la dilayo ama uu meel ku noolaadaba uusan helay inuu ku dagaalamo rabaa ilaa aakhir nafis siyaasadeed buu ka dayay isaguna nafis siyaasadeed buu ka dayay Ethiopia xaaladeedu waa sidaas waxay bilowday inay Soomaaliya jarjarto oo ay kala qaybiso xasanna isaga u fududeeyay isaga sababay haddana u fududeeyay hadda oo ay hadda tahayna isaga diyaar u ahayn inuu la diro hadduu diyaar u yahay diyaaraddu hawada ka mancin laha hawada u diidi laha inay Soomaaliya timaado kaliya ma hawadeena loo diidi laha baan karaabsi bay xiraynaysaa muddo aan sanad ka badnayn intaas oo flight goortay goyso intaas oo wadan ay tagi kari weydo waxay xirayn lahayd bankruptcy haddana cidima soo aado mawjada oo waa laga baqaa Addis Ababa adduunku Mareykanku wuxuu sheegay dadkiisa inaysan u safrin Ethiopia caalamka oo dhan saas ay u sheegaan Yurubiyaanka iyo wadamada Westernka oo dhan therefore iyada baabi'i lahayd haddii uu iska ilaawo commissionka yarka ah iyo qaadka iyo lacagta yarta ah oo ay ka helaan hadduu iska ilaawo isagaba ka adkaan laha marka qodobkaas intaasan kale Ethiopia waxay ku hawlan tahay Soomaaliya si u furfuri lahayd xasan baa sababay una fududaynaya qodobka labaad jaawareerka siyaasadeed dawladda Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noo sheegay Xasan Sheekh Maxamuud warqad uu shalay soo saaray hubba Puntland ka soo degay oo hub miyaad ka hadli kartaa soo adiga ma ahayn ninkii hubka caabud waaq lagaga dhacay soo adiga ma ahayn ninkii codka ka duubtay Ethiopia oo caalamka oo dhan siisay adigoo le ustaad oo hubka ana iska leh hal ii badbaadi adoo le hubka ciidanka iska leh hal ii badbaadi soo adiga ma ahayn ninkii warqadda soo saaray oo caalamka oo dhan tusay oo yiri hubkaas waxa keenay sharci darro ahaa ganacsataana keentay ganacsatadiina dawladda gacanta kaga dhigtay ilaa iyo hadeer cidna ma aadan xirin cidna ma aadan eedayn wax cunaqabatayna ama maaragtay ciqaaba oo ay la kulmeen ganacsatadaasi ma hayno magacyadoodana ma hayno waa ninkii sheega ma dhaaftay xasanow baashaas aday ku fadhidaa sidii xilligii rooble uu oran jiray aamina waxaa dilay allah u naxariistay kuwii dilay ikraan tahliil allah u naxariistay waana aqaanaa ilaa iyo hadeerna nooma u sheegin magacyadoodii baan hayaa buu yiri masajiyaan hayaa ninkii sheega ma dhaafto sidii oo kale xasanow waa ninkii sheega ma dhaafte aday kula taala ma hayno waxa uu dagaal qaawan ku qaaday koonfur galbeed Xasan Sheekh Maxamuud isagoo la diriraya lafta gareen rabana inuu meesha ka saaro qaar baa waxay wareejinayaan waa la heshiiyey sheekada waa dhamaatay waxa kama jiraan waxaa lagu heshiiyey NCC inuu ka soo qayb galo meetingkaas national council ama madasha qaranka madasha amniga qaranka oo isugu yimaadaan madaxyada maamul goboleedyadu oo xalaan lagu qabanayo UN to wado beenina aqbalay isna inuu ka qayb galo inta kaliya loo ogalay laakiin inuu kaligiis xamartay waa diiday xildhibaanadii soo yaacay oo soo xanaaqay oo bay dhaba joogeen in la celiyaa lagu heshiiyey laakiin wax kale oo lagu heshiiyey ma jirto ninkaan doorasho rabaa inuu qabsado xasanna wuxuu rabaa inuu ka tuuro xasan wuxuu wadaa campaign-ka si hoose beeshiisa hadallo uu u sheegay oo waxaan soo jarayaa shabeellada hoose waa ka soo jarayaa berigii horena uu isku dayey shabeellada hoose waa ka jarayaa koonfur galbeed oo u shaqayn la buu wadaa mar baa waxaa la sheegay inay damceen inay parallel process doorasho kaga qabtaan meesha baraawe iyaduna inay iska soo fashilantay ayay u badan tahay waxaa kaloo jirta oo la yaab leh oo aan weydiinaya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Ethiopia la diriraya sidii uu dhihi jiray
shabaab baan la diraya masaajidkuu tegey mikrofoonku qaatay cadow laba qodob buu ka hadlay qabyaalad wuu ka hadlay hubna wuu ka hadlay sharci darro ah hubka dadkan ka qaadayaa buu leeyahy wuxuu u dhaaranayaa dadka madaxda oo xamar jooga isagu hub buu ku haystay xamar markuu joogay hadda markuu xilka ka dego sanad iyo bar kadibna wuu haysan inuu haystuu rabaa goormaa marka in hub la haysto oo xamar lagu haystaa ay dembi noqoto haddayse dembi tahay muxuu isagu ugu haystay waa qodobka labaad wuxuu yidhi etoobiyaan la diriraya etoobiya hadduu la dirirayo qunsuliyadihii garoowe iyo hargeysa ha la xiruu yiri waa la diiday oo lagama yeelin wuxuu yidhi hubka aad soo daldalaysaan joojiya oo warqaddii shalay uu kaga hadlayey hubkii puntland aaday buu iyadana yidhi halla hubka ayadana waa diideen oo hubkii waa wadaan oo meel walba hubbay geliyeen koonfur galbeed waa geeyeen somaliland waa geeyeen puntland waa kuwa hadda geeyey galmudug waa geeyeen oo watay adigu aad wax ka geysay soo ma arkaysa hadhow markaad tidhahda ciidamadooda hayga baxeen waddanka hadday intaa kaa diideen waxna adag ka qaban maxaad samayn doontaa waxaagu maqawda maqashii waxna haw qabanba soomaalidaad jeedinaysaa etoobiya haddaad la dirirayso ay runtaa tahay hadda ka hor waxaan ku yidhi haddaad al-shabaab la dirirayso ay runtaa tahay maxaa kuu diray odawaa iyo jeyte iyo ninka la yidhaahdo biixi maxaa kugu diray dadkii iconiska ah la dagaalami lahaa al-shabaab oo la dagaalamayo ka adkaa maxaa kugu diray maxaa u cayrisay ganacsataa keentay waa la ogyaha waxay u socdaan business baa u socotaan waxaa keensatay al-shabaab u dhiibay oo wasaaradda gaashaandhigga kuu joogo u dhiibaya xogta al-shabaab ciidanka u dhiibaya waxaad keensatay dadkii dagaalka baabi'in laha sidii oo kale hadda waxaad haystaa etoobiya dadkeediibaa xafiisyada kaaga buuxa diplomat passport buu haystaa sambalolsh nisu kuu jooga cali balcad asalkiisaaba etoobiyana haddana dhaatadii waa kan ka iibiyey wasaaradda arrimaha dibadda dhaatadeedii oo dhan waxaa dhacday ethoobiya uu ku wareejiyey intuu masterkiigii qaatay julaay buu sebtembar 9 wuxuu yidhi waana la haagareeyo bahashii oo dhan hawadii ka baxday khalaas waxeenii oo dhan waa faraha u gelisay ciidankooda baxa markaa berri tiraahda see u baxayaan su-aashaasaan ku weydiinaya hadday runtaa tahay janawari kowdeediiba inala dirirtay etoobiya inoo bareertay ilaa haddeer maxaad commission yar oo diyaaradooda aad ka qaadato adiga iyo qoyskaagu iyo qaadkaas la keeno aad u siisatay ood u jari la'dahay diyaaradooda maxaad isaga celin la'dahay dadkase maxaa u rabtaa adigoo madaxtooyada ku soo dhoweeyey red carbadna u dhigay ninkii wasiirka arrimaha dibadda ee hore ee ethoobiya haddana ah secretariatka igad workne red carbad u dhigay oo sida la ogeed u soo dhoweeyo la fariistay etoobiya adoo saa ula farfadhiya inaad dadka kale etoobiyaankooda aad ku dirtid mayay kaa yeelaya dhagayso nabiyullaahi shucayb calayhi salaam markii uu la hadlayay ummaddiisa wuxuu ku yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ma doonayo inaan idiin dabamaro waxaan idinka digayo oon idinka nahiyayo in uriidu ila alislaaxa ma statactu wanaag un baan rabaa awooddayda intay ii gaarsiiso wamaa tawfiiqii ilaa billaah ilaahay subxaana wa tacaala waafajintiisa oo keliyaana ku kalsoonahay oo ku tiirsanahay calayhi tawakaltu wa ilayhi unib isagaan tala saarsaday isagaana u laabtay oo u toobad keenay qofka amarka bixinayo amiirka ahi leading by example wax la yidhahdaa laga rabaa managementigaan bartay leading by example waa inaad adigu horta tusaale u noqotaa dadka haddaa adigu dadka u dabamartid oo warkaa sheegtay ficilkaagu uu ka duwanaado waxaad ka hadlaysaa hub lama haysan karo adaa haysan jiray haddana haystaa rabana inaa haysatid yaa u diidaysaa marka yaa kaa yeelaya waxaad tihi musuq hala joojiya masaajidkaa dhex taagan tahay adigaa musuqii kaa bilowdaa kuguna dhammaadaa yaa kaa yeelaya marka daaya inta kalena waa xadaya qaadkiibaad gadaysaa oo daroogaa markaasaa le daroogada iska daaya yaa kaa yeelaya waxaan kugula talinaya niyo masaajidkan dhulku intuusan kula go-in faraha ka qaad mikrofoonkiisa mikrofoonkaasi waa ku dhibsaday oo ku dhibsaday oo ku dhibsaday dadka ku hor fadhiyaana qalbaday kaa habaarayaan oo kaa caayayaan marka iska daa mikrofoonkan faraha ka qaad meelo kale ka hada madaxtooyadaada iyo meelaha beentaa ka sheegaysa ka sheeg qodobka labaad oo ka hadashay qabyaalad buu ahaa
qabyaalad miya xasan ka hadli karaa xasan qabyaalad qof ah wey waxa uu ka samaysan qabyaalad madaxtooyadiisa fiiri cidda ka shaqaysa la taliyayaasha uu magacaabay oo dhan fiiri qandaraasyada uu bixiyo fiiri qoyskiisa hoose dhaafilaada qof kasta uu meel ka qaado wuxuu ku bedelaa qof kale wuxuu yiri dadka yaan la caayin oo la kala fogeyn wiilkii dadka caayay oo wacallada ku sheegay qabaa'ilka dhan hoostu gashaday because waa adeerkiis adeer buu yahay shalay buu u caytamayo farmaajo waa mariixaan iyadaasuna shaqada ku siiyey haddana intiibu ku jooga soo ma arkays wiilkii kale oo reer koonfur galbeedka ahaa oo la taliyaha u ahaa oo isagu dhanka kale ka soo jeesto yiri Itoobiya annaga noo sheegaysaan idinka hoosta ku wata degdeg buu u cayriyey shaqadiina uga qaaday mid uu adeer u yahay oo kaluna ku bedelay qabyaalad buu ka sheekeynaya marka kan waa looma ooyaan asaga agtiisa kan kale waa lama taabtaan haa nin gobaho laandheera wey lama taaban karo cidda wey qabyaalad buu ka hadlayaa askari uu dalacsiiyey waa reerkiisa askarta uu qoray oo dhanna waa cidiisa 90% wuxuu qortaa waa familigiisa wuxuu ka sheekeynaya qabyaalad waxyaaba aadan geyin baa jira maaseeji aadan xambaari karin baa jira sidaas aayaddu u sheegayso wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ficilkaaga iyo qowlkaagu hadday iswaafaqsan yihiin dadku waa ku rumaysanayaan laakiin labadaas hadday iska soo horjeedaan adan cidina kaa dhegaysan mayso warkaa yaa rabtaa inay qabyaaladooda tuuraan adiguna ataada jeebabka ku wadatid yaa rabtaa inay adigu intaad xoolaha ummadoo dhan boortid xaraashkii waddankii oo dhan goortaa dhammaysatay baad safaaradihii maraysaa caalamkii baad u baxday ma arkaysaa musuq baa ka hadlaysaa qaadkaad soo waaridaayo adigu gadaayo commissionka aad ka qaadatay Itoobiya weli diyaaradeeda ku noosha shalay qunsuliyadii la xiraa tiri waa diiday waxna kama hada qaban waxba kama qaadi kartid sababta waxa kaliya aad qaban kartid hadda waa inaad ciidankana baxa tiray diyaaradoodana manacsid ciidankooda bixi mayaan diyaaradoodana waxaan ka baqayaa inay xoog ku degto haddaad xamar u diiday inay magaalooyin kale ka degto waa sidaa u wado ma arkaysaa marka sidaani dowladnimo maahee niyow waxaad yeeshaa waa kula talinayaa lacagtaana urursanaysa inta iska daysid Itoobiya si ay isaga dhicisa daarabti jabhaday kugu furaysaa maamul goboleedyadii oo dhan jabhaday u bedeshay jabhadihii waagii hore ay haysan jirtay oo kale ayay u noqdeen kulligood maxaa ku talaa jabhadahooda la tasho keen xamar uga wada fur xafiisyo hub iyo dhaqaale sii lacagtaana urursanaysa cuni mayside 70 baad kor u dhaaftay si iyaga oo dalka ku difaac marka dadku waa ku garab istaagaya adiga haddaad bilowdi difaaca dalka ummaddu waa ku garab istaagaysaa laakiin khuraafaad cidina kaa dhagaysan mayso mikrofoonkaana niyow iska daa ammaan sii ha ku ceeboobin kuba ceebowday inta ha u dhaafin in dhulku kula go'aan ka baqaya adoo been akhriya masaajid ilaahayna dhex fadhiya baan ka baqayaa wallaahi marka adigu naftaada u turo iska daa waxaan wallaahi xasra bay kugu noqonaysaa maalinta qiyaamaha shallaytidayda maxay ugu watay baa kaa imaan doonta intaasaan odhanaya billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.